waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo 4 qodob. qodobka koowaad wuxuu yahay midnimada Puntland iyo wadajirka Puntland inay yihiin muqadas in la wada adkeeyo gaar ahaan casuumadda wixii maalintii ka dhaweyd ka dhacay oo kale inaysan dib dambe uga dhicin arrintaas oo ahayd arrin aad u fool xun oo aan aad uga xumaanay dadkii shacabka ahaa oo laamiga gubay waxaan u soo jeedinaynaa waxaas oo kale mar dambe inaysan dhicin qodobka labaad waxaan u tacsiyeynayaa ninkii marxuumka ahaa oo dhintay Allah u naxariistay Ciise Maxamed Buraale ciise Sulembe ilaahay naxariis janno ha siiyo dhammaanteena sabir iyo iimaan hayna ka siiyo dawlad iyo shacab ilaahay dankiis waxaan rabaa inaan si gaar ah uga mahadceliyo gaashaanle Cismaan Maxamed Buraale Cismaan Sulembe oo ahaa taliye ku-xigeenkii qaybta ninka dhintayna la dhashay oo walaalkiisa ay mataana ahaayeen oo waliba islaantiisiina shoobarihii ku dhaawacantay oo xabada ku dhaceen sida naloo sheegay sidaas darteed sharaftii uu ka qaatay iyo wanaaggii uu nabadgelyada ka qaatay maalintii sidii uu noogala shaqeeyay arrintaas oo gobolku noogu dhacay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan leeyahay dawlad iyo shacabba ninkaasi wuxuu mutaystay biladda nabadda iyo dallacsiin in loo aqoonsado sarkaalka nabadda ee Puntland dallacsiin iyo abaalmarin la siiyo taasna dawladdan u soo jeedinayaa dhammaanteena waa u mahadcelinaynaa aad iyo aad baad u mahadsantahay baan leenahay isaga iyo ciddii kale oo nagala shaqaysay arrintaas afqabashadeeda iyo xalinteeda iyo wasiirka maaliyaddu ka mid yahay Xasan Shiraab Gaal iyo rag kale oo badan oo saraakiil leh oo cid walba leh aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa cid kasta hawsha ka qayb qaadatay qodobka saddexaad dawladda Puntland waxaan u soo jeedinayaa hawlgalkii ay ka waday magaalada Garowe in sidii loo wado oo dadka qaybna aan wax laga dumin qaybna la iska deyn qof kasta oo hanti dawladeed deganaa in la soo celiyo waxaan kale oo taa ku darayaa dadka hantidoodii la burburiyay oo agoonta leh oo maatada leh oo meelihii ay deganaayeen oo wixii ay haysteen ka dhisteen dawladdu dib uga burburisay in qorshe loo sameeyo ama dhaqaale yar ha ahaato waxa loo qorsheeyo ama bogcado kale iyo laga siiyo dooxooyinka nin waliba 50 kilomitir iska goosay 2 kilomitir wareegsaday oo magaalada konayaasheeda in dadkaas si gaar ah loogu togahayo oo dawladdu ay mudnaan gooniya siiso waan iyadana u soo jeedinaya qodobka afraad waxaan ku gabagabaynayaa arrintii foosha xumayd oo halkaa ka dhacday iyo geeridii ku timi Ciise Maxamed Buraale Allah u naxariistay waxaan rabnaa ciddii falka geysatay hawsha dawladdu inay xal ka keento si degdegana wax uga qabato dadkuna ay ku qancaan oo sugaan inta hawsha xal laga keenayo dawladdana waxaan ka u soo jeedinaynaa in hawsha si degdeg wax uga qabato